السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش كحرم جنركية دكتورة سجية كسود بهذا ولا هي قالية من وباء جبتان أدور برالك النخوة ما عند موضوع سوق جدنا يقول كسر سيهاي ركا وشهوة وده هو سيسة إسبر مها ركا أما من ركا hooseysa ayaan ka hadli rabnaa hadduu rab raali ka noqdo. Haddii aad ku cusubtaa janarkiisa subscribe saar, muuqaalkana la gareey una sheerkay asxaabtaada insha Allah biidhnillaahi kariim. Haddii aynu guda galno muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay in sida wada taqaanaan xabad rushaad ayaan halkan ku haysanaa. sidoo kale waxaan haysanaa dhagayaraha, sidoo kale malab saafi ah ayaa halkan ku haysanaa. sidoo kale waxaan haysanaa caano diiran oo fandiir ah sa u taqaano ama caano markaas xoogaa yar kulul. sidoo kale intaani waa la isku dardarayaa xabad rushaadku intii daqaan ayaa wada taqaanaba. inta aqoon xabad rushaadku wax badan ayuu qabtaa oo dhanka haweenka iyo carruurta iyo ragaba intaba ayuu u fiican yahay isticmaalkiisa. sida wada ognahayba shahwada ragga maanta waxaan ugu talgalay ragga ka cabaadaya ama ka cabanaya shahwadooda in ay yar tahay, sidoo kale shahwadooda ay soo daahdo oo shahwadooda aan lahayn tayo markaasi isku tuureyso oo aan gaaraynin meel dheer aan gaaraynin. sidoo kale shahwada aanan badnayn, sidoo kale ka cabaadaya shahwada markay soo baxayso kale xanuun ay ka cabaadayaan qaarkooda ayaan ugu talagalay muuqaalkani. muuqaalka share garay lacagtana saar. sidoo kale xabad rushaadku waa asaga waa daawo waa dabiici waaye dabiici ah saa wada ognahay. sidoo kale waxaad diyaarsanaysaa koob caano ah sida loo isticmaalo oo ah koob caano ah ayaad diyaarsanaysaa oo diiran. markaad diyaarsato waxaad soo shiidanaysaa xabad rushaadka. markaad soo shiidato oo kasoo dhigto daqiiq sida waxaad u shiidaysaa sida sisinta loo shiido oo kale loo daqiiqiyo ayaa usoo daqiiqinaysaa. kadibna waxaad soo qaadanaysaa malab saafi ah, sidoo kale dhagayaraha oo kale oo shiidan ayaa soo qaadanaysaa. qaando oo xabad rushaad ah, qaandada weyn oo cuntada aan ku cunno oo haafkeeda xabad rushaad ah soo qaadanaysaa. caanaha ayaa ku daraysaa, sidoo kale waxaad soo qaadaysaa qaandadaas oo haafkeeda ah oo dhagayara ah. waxaa ku daraysaa galaaska caanaha ku jiro, sidoo kale qaandadaas oo buuxda oo malab ahna oo malabka saafiga ahna waxaad ku daraysaa isla caanaha. markaa isku darto waad qasaysaa. markaad qasto si fiican u qasto waad cabaysaa. sidoo kale waxaa la cabaa labada waqti habeenkii iyo subaxii. salaad subax oo kale markaa soo kacdo aad dukanayso ayaad cabaysaa quraacda inta aadan cunin. quraacda ka hor ayaa la rabaa in aad cabto. ayaad sameynaysaa isbuucaas aad sameynaysana xaajiyadaada lama falgalaysid, mala sameynaysid wax markaasi oo gogolasho ah ama sariirta ah ama raaxada ah mala qaadanaysid isbuuc markaad habado subaxii iyo habeenkii. sidoo kale habeenkii markaad isticmaalayso cashada ka hor iyo cashada kadib intaba waa isticmaali kartaa. markaas wax problem ah ma lahan oo kaliya waxaad daran subaxii adoo afkaaga wax aan saarin inaad cabto ayaa la rabaa. sidoo kale marka aad isbuucaas dhameysato daawada way ku sii soconaysaa. waxaad isticmaalaysaa 30 daqiiqo ka hor inta aadan fuulin sariirta ama aad sameyninba gogosha.
ama raaxada 30 daqiiqo ka hor ayaa cabaysaa habeenkii kadibna sariirtaada tagaysaa barnaamijkaaga iska bilaabanaysaa hadduu rab raali ka noqdo subaxiina caadi waaye waad isticmaalaysaa sidoo kale marka daawada isticmaashan waxaa loo baahan yahay in aad cabto biyo badan si ay usoo baxaan wasakhda iyo wixii kale wasakh kugu jirto si ay usoo baxaan oo jirkaaga nadiif u noqdo waa inaad biyo badan aad isticmaashaa ama aad cabtaa sidoo kalena samee socod ama jimicsi hadduu badan yahay fadhigaaga maalinkii 30 daqiiqo ama 30 minute dayska walba waa inaad sameysaa jimicsi sidoo kale walwalka iyo fikirka layskama wadayn karo waa la ogyahay laakiin waa inaad iska yareysaa fikirka iyo walwalka aad ku dheeraanayso ayaa la diidayaa waa la fikiraa sax waaye fikirna lama dhaafi karo laakiin inaad ku dheeraato ayaa la diidayaa insha Allah biidhnillaahi kariim marka laga hadlaayana caafimaadka xaqiiqatan xishood ma galo waxaa wanaagsan qof walba caafimaadkiisa inuu ka hadlo dhakhtar walbana waxaa wanaagsan inuu kasoo hadlo wax walba ee bulshadu ay u fiican tahay markaasina caafimaadkooda saaid ugu noqon karo aad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkan waxaa idin rajeynayaa caafimaad bash iyo barwaaqo insha Allah